السلام الله عليكم ومركلي برنامج كيني غيرت هذا نقد دعوانيسان وأنا جو أهلي من بدار عوية تي في كان نقد دعوانيسان من بدار عوية تي في برت يوتيوب كان كله هاي صباح وناكسن إن الحمد لله وحن لا مركلي مرسد حد إن برنامج كيني بدارتا أمو تيمها قدادنا يو إن أنسك عاونو إن waxaa kale uma soo galo meeshan waxaan usoo galaa aniga in isbedelka madaxiga ka socdo in la wadaago idinkana ay la wadaagtaan wixii fariimo ah ama wixii siniga noqday in ay igala soo xiriirtaan mar labaad iyo mar saddexaad walaalo badan baa waxaa weeye soo weydiiyey su-aalo hal iyo laba haddaan kasoo qaato yar baa wuxuu iisoo qoray walaal bidar caawiye liban bidar caawiye waxaan haystaa darmaroolkaan haystana waa lambar 03 waxaa waaye eber saddexaan haystaa marka adna waxaa tiri eber shan qofka waa inuu isticmaalaa qofka timaha yar ama bidaarta leh eber shan buu isticmaali karaa marka maadaama aan waayey eber shankii eber saddex ma isticmaali karaa haa waa isticmaali kartaa eber saddex haddaada haysan haddii aa weyse darmarool qasab ma ahan qofka hadduu darmarool waayo waa inuu haystaa shalladan qofka hadduu darmarool waayo shalladaas carbida way ku filan tahay waayo qasab ma ahan muhiimaddu waxay tahay in la kiciyo dareemaha qofkaas soo bidaar leh hataa madaxiisa uu qaawan yahay dareemaha waa inuu kiciyaa ani markaan bilaabay maalintaan bilaabay maanta isku mid ma fiidiyowgay koowaad soo fiiriya kii labaad iyo kii saddexaad iyo maanta isku mid ma ihi si fiican markaa u fiiriso madaxii tartiib buu usoo madoowaanayaa insha allah waxaan fiidiyowga usoo duubo mar walbana waxaa waaye inaan la wadaago madaxeygii inaan ka dhigaan rabaa before iyo after shala sidaan ahaa iyo maantasaan ahaa marka aniga waxaa hadda igu daran qeybahan igu daran halkan iyo halkan geesaha biidnillaahi kariim waxaan loo dadaalin ma imaadaan dadaal dheerna waxaan rajeyn doonaa inay imaadaan walaal kale wuxuu isoo weydiiyey su-aal aan la fajacay walaal kale oo ku xiran barta youtube aan ku leenahay oo ka mid ah dhalinyaro magaciisa ma sheegayey wuxuu soo weydiiyey aniga timahayga dhib igama qaba tima dhib kama qabi bidaarna ma lihi timahana ima daataan laakiin gar ma lihi uu yiri baashi waan soo gatay new hair lotion waan soo gatay garka oo isticmaala suu gar igu soo baxo marka aniga waxaan ku yiri new hair lotion kuma qorno gar kuma qorno dee haddaa isticmaalaysa aday kuu taalaa laakiin gar kuma qorno haddaa gadaal dambe ka aqriso ingiriis ha ku qoran iyo af taylandees ha ku qoran qofkii si fiican u fiiriyo ingiriisna wuu ku qoran yahay af taylandeesna wuu ku qoran yahay marka waxaan ku idhi walaal dee adaa go-aankaas qaatay laakiin aniga ku dhihi maayo baasha gar bay soo saartaa iyo gar ma soo saarto laakiin waxaan ogahay in timaha loogu talagalay timaha ku daadanayo tim burburka ama bidaarta iyo wixii la mid ah in loogu talagalay laakiin anigu kuma dahayi anigoo liyan bidaar caawiye ah garka marso gar bay kuu soo bixin doontaa marka tii garka waa sugeynaa insha allah tii garka weli may soo bixin waa sugeynaa tii garka marka darmaroolka hadda yarka isoo weydiiyaan ku noqonayaa walaalka isoo weydiiyey darmaroolka sidiisaba horta muxuu qabtaa dadka inay fahmaan baa fiican darmaroolka muxuu qabtaa muxuu sataraa darmaroolka muhiimadda qofka oo u isticmaalaya darmaroolka waxay tahay wuxuu furayaa meelaha xirmay darmaroolka sidii wuxuu soconayaa hadda ka horna waa nii sheegay darmaroolka meelaha madaxa xirma qofka bini'aadanka uu furayaa haddii darmarool aa haysan khasab ma ahan darmarool inaad raasatid saliidda adoo isticmaalin shallada waa nii sheegay shallada isticmaali kartaa marka darmaroolka wuxuu fududeynayaa in saliidda ay jirka gasho darmaroolka wuxuu leeyahay marka ila yaryar dadka ma arki karaan ila yaryar uu leeyahay ama mudacyo yaryar oo madaxa kaa dulaayo saa markaa dhahdo waad dareemaysaa wuu dhaqaaqayaa sidii garangarkii u dhaqaaqayaa wuu wareeganayaa sidii mashiinka u wareeganaya marka darmaroolka madaxuu kaa durayaa darmaroolka wax kale oo waxaa waaye uu ku fiican yahay meeshii saliidda aa ku shubi lahayd ama saliidda ee lafta inay gaarto aa rabi lahayd wuu gelayaa madaxa markii hadda la mariyo madaxa wuu caddaanayaa si fiican u fiirso hanaga iloobin subscribe share like hanaga iloobin hadda adiga bidaar lahayd walaalkaaga bidaarta leh ama walaalkaaga timaha igu go-ayaan u sheergaray ama walaashaada timaha igu go-ayaan u sheergaray barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax kale kuma saabsano madaxuu ku saabsan yahay gar kuma saabsano meel kale kuma saabsano waa timahaagii see u soo ceshan kartaa
timahaagii adiga ila daawanayo timihii kaa daatay ama timihii bidaarti si u soo ceshan kartaa dadaal dheer iyo juhdi dheer waxaan aaminsanahay inaad soo ceshan karta saa aniga u soo ceshto kale aniga liiban bidaar caawi ah saa u soo ceshtay marka wixii su'aalana way igu soo weydiin kartaan hadda korna waan ii sheegay whatsappka commentiga way igu soo weydiin kartaan waan iga jawaabayaa hal iyo labo wixii aan jeclaan soo helo insha Allah ama aan ka gaaro sida hadda oo kale aan uga jawaabay walaalaha isoo weydiiyay su'aalaha marka waxaa qasab ah hadda fiir markaa madaxa mariyo madaxayga marka hore wuu mudowaa madaxo dhan hadda wuu cadaanayaa si fiican u daawo madaxo dhan wuu cadaanayaa daawo madaxo dhan wuu cadaanayaa daawo markaa mariyo darmaroolka madaxo dhan wuu isla cadaanayaa darmaroolkan waxaa ku jeclaada hadda aniga wuxuu kaa soo daadinayaa wax yaroo cadcad aamudid agool darmaroolka saliidana ha iloowin hataa darmarool haddaan marsanaynin labada isbuuc iyo saddexda isbuuc kugu hayo niyo kugu horeyso new hair lotion waxay keentaa agool qofka inuu madaxa qalalo hadda aniga waxaan rabaa markaan cashirka hadda intaan ka bixin markaan dhameeyo u fiirso wax kale ma isticmaalay markaan dhameeyo darmaroolka 5 daqiiqo markaan wado oo aan dhameeyo waxaan rajeynayaa saliidda inaan u dambaysiin doono markaan saliid u dambaysiyo kadib waa baxaya magaalada aadaya hadduu ilaahay idmo marka uma baahni inaan wax kala sii marsado madaxa waxaa laga yaabaa inuu wax sii cadaado ama qofkii madaxaaga fiiriyo inuu ku dhaho niyo wax ma soo marsan miyaa marka ha u joojin waxaan ku jirnaa dagaal waaye dagaalkaas soo cesho adigoo gurigaaga joogo timahaagii adoo meel kale aadin turki aadin qof kale u tagin soo cesho haddii walaal macaan adiga daawanaya darmarool ah haysan dhib ma laha darmarool inaa haysato qasab ma ahan waxaa kugu filan keliya shallada ayaa kugu filan insha Allah wixii fariina way soo weydiin kartaa wixii aan kugu dhaamo ama intii karaankayga aan ka gaarana waa kaaga soo jawaabi doonaa halkaa naga daawanaysaan oo barta YouTube aan ku leenahay bidaar caawiye TV anigoo ah liibaan bidaar caawiye daadiyaha barnaamijkan oo waliba bidaar leh ogow been qofka ma sheegi karo waliba ani bidaar aan leeyahay maadaama aan bidaar leeyahay waxaan rabaa inaan la wadaago isbedelada dhici doona insha Allah waxaana ku qoran dhowr bar noo ku soo celiyay waraaqda waxaa ku qoran 3 bilood darmaroolkan qof turki aaday ama timo soo abuurtay ma isticmaali karo yuu isku dayin inuu isticmaalo waayo tintii hore uu soo abuurtay ayaa meesha ka bixi doonta tii hore uu soo abuurtay oo meesha intii la duleeliyay lagu soo suray taasaa meesha ka bixi doonta marka walaalaha waxaan kula talinayaa timaha soo abuurtay saliidiina iyo shalladiina tartiibtiina saliidiina iyo shalladiina yani laga dareemin tartiibtiina saliidiina iyo shalladiina wata insha Allah waxaa loo dadaalin lama helo dadaalka la wado insha Allah dadaalka waxa waaye kulligeema dadaalka u baahannahay inaan dadaalno madaxii waa ka wada cadaaday si fiican u fiiri madaxii wuu wada cadaaday darmaroolka waxa waaye waa best baalka kaliya ah oo duleelada kuu furaya waa darmaroolka salxayaa ugu daran salxayaan si u soo ceshtaa salxayii waa kaasaas ay yeelaysaa uma baahnid inaad ka fikirtid salxayahay waa inaad gelisaa baalka ha ka fikirin hana ka baqin quwad bilowga hore darmaroolka xanuun buu leeyahay laakiin waa la qabsan doontaa jidhkaaga la qabsan doona insha Allah bidnillaahi kariim jidhkaaga la qabsan doona darmaroolka ha u joojin wala qabsan doonaa jidhkaaga waa la qabsan doonaa good bayda hataa mari good bayda waxaa la qaybta dambe bidaarta good bay la qaybta dambe horaan igu sheegay good bay mari si fiican u mari 5 daqiiqo laga rabaa darmaroolka markay ugu yar tahay waa 5 daqiiqo inaan wado darmaroolka ilaa 6 daqiiqo oo darmarool kaliya halkaan naga daawanaysaan barta YouTube aan ku leenahay bidaar caawiye TV anigoo liibaan bidaar caawiye barnaamijku wuu sii socon doonaa inta laga gaarayo guushana way dhowdahay barnaamijkana wuu sii socon doonaa guusha intaan gaarayno guushana way dhowdahay waxba has dhigan adoo gurigaaga jooga turkiga aadin hadday timaha ku daadanayaan iyo haddii aad bidaar leedahay ama haddaad iskaga shaksan tahay bidaar caawiye TV ku xirno mar walba meelaad joogto alaabtaada soo habayso iyo hair lotiontaada iyo waxaaga shaqadana bilow hoosha bilow hadalka ha yaraado hoosha ha socoto hadalku ha yaraado hooshu ha socoto hadalku ha yaraado hooshu ha socoto
barnaamijkan wuu socon doonaa insha allah. waxaan rajeynayaa inaan bilaashka ballaarino aan bilaashka aad ballaarino adiga i daawanayo saaxiibkaaga i daawanayo usii sheergaray u deelay insha allah bidnaahi kariim 5 daqiiqo oo ay dhamaatay waxa way iman ilaa 5 daqiiqo darmaralkaas waa muhiim ujeedaa darmaralka waa dhamay markaan dhamay darmaralka meeshiisaan ku celinayaa uma baahni inaan sii haysto ama aan sii wado waxaan soo qabsanayaa markaas darmaralka waxaan ku celinayaa meeshiisii hadduu ilaahay idmo barnaamijkan wuu socon doonaa hadduu alla idmo darmaralka meeshiisii iga celi oo dayn maxaan sameynayaa marka darmaralka meesha ku celiyo waxaan sameynayaa saliidda soo qabsanayaa wax kale ma sameynayo saliiddii waa talaa saliiddana waa Nivea hair lotion ha iloobin saliid kale ha moodin saliid cadday ma aha waa Nivea hair lotion ujeedaa madaxa marka fiiri madaxa caddaa wuu isbedelayaa haddaa ku masaajeyso madaxa cad markaa ku masaajeyso waa ujeedaa madaxiisu waa caddaa markii aad ku masaajeyso wuu isbedelayaa wax kalena way leedahay saliidda waxay leedahay oo kale dhalinyaro badan baa isoo weydiisay xanfafay leedahay xanfaf yar markii weli darmaralka ku isticmaasho waaye xanfaf yar oo meel dheer ay leedahay laakiin ha u joojin waxaa ka muhiimsan hadafka aan ka leenahay saliidan aa ka muhiimsan halkaan naga daawanaysaan barta YouTube aan ku leenahay Bidaar Caawiye TV oo anigoo ah liibaande ka weyne meel walba joogtaan hanaga iloobin subscribe iyo share iyo like inaad siiso walaalkaaga bidaarta le u share garay abtigaaga bidaarta le u share garay walaashaada timaha daadanaya u share garay barnaamijka si ula socoto mar walbo barnaamijkan wuu socon doonaa hadduu ilaahay idmo insha allah biidnillaahi alkariim ilaa ee timaheena ee noo soo noqdaan waa wadaynaa ma joojinayno barnaamijka magaciisa waxaa la lahaa Bidaar Caawiye hadday timaha ku daadanayaan haddaa bidaar leedahay waad nala soo xiriiri kartaa commentiga wixii fariin waa noogu reebi kartaa whatsappka waa igala soo xiriiri kartaa aqyaartay wadanaga daawanaysaay cashirkan wuxuu noqon doonaa cashirkii 16aad cashirkii 16aad walaal macaani baashi gar ha u isticmaalin gar looma isticmaalo Nivea hair lotion timaha ku qoran waana ku qoran tahay iyadoo ingiriis in timaha loo isticmaalo laba gelin aan marsato haddii jaanis aa u helayso ama aa awoodo inaad dhowr xaba haysatana 3 gelin waa isticmaali kartaa waa aroorta hore sida hadda aan sameynayo kale aroorta hore duhurkii oo kale ama markaad tukato duhurkii oo kale habeenkii oo kale marka waxaan ani maalinta u marsan waayey waxaa laga yaabaa haddii aan aroorta hore isticmaalo aan guriga ka baxo salaad subax mar waa tukanay haddaan guriga ka baxo kale shaqo aan aado haddii shaqada aan ka noqdo ama shaqada anoo ku jiro oo kale ma heli karin inaan isticmaalo teeda labaadna salaadihii duhurkii iyo maxaa samaynaysaa salaadii duhurkii iyo haddaa marsato duhurka bacdi casarkii waa weyse qaadanaysaa inaa weyse qaadataa ku qasban tahay madaxiinu biyo wax taabta lama rabo marka saasaa keenaysa inaad marsato habeenkii markaad seexanayso iyo aroortii markaad soo kacdo habeenkii markaad seexanayso hadalkayga u fiirso habeenkii markaad seexanayso iyo aroortii hore markaad soo kacdo haddaa baashaan sayta aa u isticmaasho madaxaadoo qalalan wax kale aan la isticmaalin biyo aan la isticmaalin saliid markaan baashaan marsato saliid ama kareem aa isticmaalin waxaa hubaa timahaagii inay kugu soo noqon doonaan siday ahaan jireen beresamaadkii siday ahaan jireen inay kugu soo noqon doonaan aan kugu rajeynayaa adiga i daawanayo adnaha iga iloobin walaalkaa baan ahay inaan iisii shargalayso barnaamijka Bidaar Caawiye TV anigoo liibaan Bidaar Caawiye ah mar walba iyo meel walba joogtaan waxaan jecel lahay inaan nila wadaagno wixii fariin ah ama wixii su'aal ahna waa soo weydiin kartaa insha allah biidnillaahi alkariim waxaan isku dayi doonaa inaan iga jawaabo waxaa laga yaabaa in aan jawaabta ay kaa soo daahdo kale hadday jawaabta kugu jawaab ay kaa soo daahdo waxaa waaye waxba ha u arkin waa bini aadam qofka bini aadamka ahna waxaa laga yaabaa inuu mashquulsan yahay ama in danihiisa adduunyo uu ceerinayo marka waqtiyadeeda waqti kamid aan siinayaa waan ila wadaagayaa wixii fariin ah iyo wixii waan ah kulligeen waa isku leenahay waa ii soo reebi kartaa wixii waan ah wixii fariino waan kaa qaadanayaa mar walbo iyo meel walba aad joogto ha iga iloobin inaad subscribe ii saarto aad sii shargalayso walaalka aad sii shargalayso
leegta commentiga wax walbo ha iloobin wixii fariina waa kuu sheegay commentiga igu soo reebaysaa wixii fariin ah commentiga igu soo reebaysaa baasha markaa marsato ku masaajay madaxa dad baa waxay isweydiinayaan cashirkan waa ku soo celcelisaa muhiimadda aan ugu soo celceliya cashirka waxay tahay maxaan isbedel oo dareemay videogayga hore iyo videoga hadda aad daawanayso maxaa isbedel farqi u dhaxeeyo waa u jeedaa madaxayga markaasaa dhaho isbedelka u dhaxeeya waa dareemi kartaa ilaa hoos ku qabo arday baa tiri ilaa hoos fiiri madaxayga isbedelka wada u jeedaa maasha allah guud bayda hadda markaasaa dhaho waaga hore timo ma lahayn way kasoo baxayaan maasha allah isbedelka wuu imaanayaa adduunka waa step by step adduunka wuxuu ku socdaa haddii la nool yahay ilaahay nafta noo daaya insha allah waxaa waaye wax walba sabri rabaan qofka hadduu samro qofka bini aadanka ah hadduu samro wax walba oo kugu dhaco qadar alle ku dhaceen waxaan wadna dadaal waaye haddaa samarto waxaa ogahay biidnillaahi alkariim oo dadaalna aad la imaato in aa heerka gaaraysid mid kalena waa kuu sheegayaa haddii bidaarta aa u leedahay farac bal hadalkayga u fiirso haddii bidaarta aa u leedahay farac awowga uu lahaa awowga saddexaad awowga afraad aabaha aabihiis waxaa laga yaabaa baasha in 90% ay ku qoran tahay kartoonka 97% inay wax ku qaban weyso 97% inay wax ku qaban weyso way ku qoran tahay kartoonka qofkii doona ka akhrin karo halkaan naga daawanaysaan waa Bidar Caawiye TV Sweden anigoo Leon Bidar Caawiye waxaan leeyahay barnaamijka maanta soo yahay inaad sii share gareyso like subscribe hayga iloobin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh